Asalaamu calaykum waa inoo iyo cashar kale casharkeena 34 ama lesson 34 kitchen tools and utensils qalabka iyo maacuunta jikada ayaa maanta isbareynaa kanaalkeena waa English Somali Translation Hub fadlan hadaa ku cusub tahay subscribe saaro notification-kana on ka dhigo sidaad casharo badan ula socotid hadaad ku xirneedna mar hore cashirka dhameyso insha Allah waxa meel ku qoranaysid ku qoro mahadsanid glass 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 English waa glass Somalina waa glass glass is for juice glass is for juice glass waxaa loogu talagalay cabitaan glass is for juice glass waxaan dhahnaa waaba glass ba is for na maxaa laga wadaa waxaa loogu talagalay camal cup cup cob cup cob cup cup is for tea or coffee cup is for tea or coffee cob waxaa loogu talagalay shaah ama qaxwo tea waa shaah coffee-na waa qaxwo cobna waa cup mar hore ayaan sheegnay is for-na waxaa loogu talagalay ayaa laga wadaa knife knife mindi knife mindi knife is for cutting knife is for cutting mindi waxaa loogu talagalay wax gooyitaan ama inta wax lagu gooyo ayaa loogu talagalay is for fasiraadeeda maxaa waaye maxaa loogu talagalay camal spoon spoon qaado spoon qaado ama qaando spoon is for eating eating maxaa laga wadaa cunitaan spoon waa qaado ama qaando waxaa loogu talagalay wax cunid qaando waxaa loogu talagalay wax cunid spoon is for eating saucepan saucepan digsi inta badan waa digsiyada lagu karsado waxyaabaha dareeraha adii sida shaaha bisbaaska maraqa waxyaabahaas digsiyada loogu talagalay ayaa la lahaa ama Soomaalida digsi iyo dheri u kala baxsan yahay pot pot waa dheri digsi digsiga weyn dheri waa ni kala baxsan yahay waan filayaa I mean uu noo kala baxsan yahay Soomaali ahaan sida u nahay pot dheri pot dheri af Soomaaligeedan hada wax ka yara qaldamo meesha iga qaldan waa iga soo sixi kartaa fursadaas waan ku siiyay ama waan ku fasaxay frying pan frying pan frying pan waa bahasha lagu karsado canjeerada malawaxa ama ukunta ama waxyaabaha oo saliid yar lagu shiilayo la dhahaa frying pan af Soomaali adiga laga rabaa frying pan is for frying foods frying pan af Soomaali adiga laga rabaa waxaa loogu talagalay in cuntooyinka lagu shiilo frying pan is for frying foods frying pan is for frying foods basting brush ama basting okay English keena waa British marka basting brush ama brush basting maxaa waaye wax marmariska markii iyada borarkii waxa la marinayo basting brush is used for applying oils sauces or melted butter onto food burushka waxaa loo isticmaalaa ama loogu talagalay in lagu marsado saliidaha suugada ama subaga dhalaalay cuntada korkeeda sida rootiga markaa karisid foornada ka soo bixisid subag dhalaalaysay ama waxa korka marin ama inta hagaajinin ukunta laga marinayo bahalka brushka loo isticmaalo ayaa la dhahaa basting brush wix kuugu cusub fadlan meel ku qoro sida u hilmaamin sawirada maxaa u soo daray sida u hilmaamin ama u fahantiin cooking spoon waa qaadada wax karinta qaandada wax lagu karinayo ayaa la dhahaa
Cooking spoon is used for stirring, scooping and plating various food items. Qaadada karinta waxaa loo isticmaalaa is used for waxaa loo isticmaalaa ilaa meeshaas walaaqida stirring walaaqid ayaa la dhahaa scoopingna hoolitaan ama cuntada markaa digsiga kasoo bixinaysid camal plating waa guritaan okay colander bastamir strainer shahmir strainer is used for draining liquids. Shahmir waxaa loo isticmaalaa in lagu miiro waxyaabaha dareeraha ah sida shaaha, biyaha, maraqa wixii yaryar oo la miirayo oo dareere ah ayaa loogu talagalay. Strainer shahmirka waaye. Sieve shaandho ama shaqshaqo bahalka wax lagu shaqshaqo ayaa la dhahaa sieve. Adiga af Soomaaliga u garanaysid labadaba waa diyaar. Sieve is for sifting dry ingredients. Sieve shaandho maxaa loogu talagalay inta lagu shaqshaqo maadooyinka qalalan sida burka, bariiska dacara kaa gasha camal sidaas ayaa loogu talagalay ama dhagaxta aad ka kala reebaysid. Plate saxan Plate is for serving food. Saxan waxaa loogu talagalay inta cuntada lagu guro. Serving maxaa waaye cunto guritaanka ayaa la dhahaa ama cunto diyaarinta camal marka saxanka lagu ridanayo. Plate is for serving. Whisk maxaa waaye baasha ukunta lagu xurbiyo. Like ukunta markaa qasaysid camal ama bur ama wixii mashaariic ayaa la dhahaa bahalka lagu qaso. Af Soomaali adigaan kaaga baahanahay. Whisk is for whisking eggs ama dough. Whisk bahalkaas xurbinta maxaa loogu talagalay inta for whisking inta lagu garaaco xurbin maa la dhahaa ukunta marka la qasayo camal actionkaas ayaa la dhahaa whisking. Eggs no ukun, dough waa bur marka burka biyaha lagu daro ama burka doolshada wixii ahaataba dough ayaa lagu wacaa. Jug waa jeeg waaye. Grater waa bahasha lagu xoqto kaaroodka wixii la hoolayo bahalaha lagu hoolo ayaa la dhahaa grater. Af Soomaali adiga ayaan kaaga baahanahay meel kasta calaamad su'aal saaran af Soomaaligaas mid aad ka siisid comment-ka kusoo qor. Cutting board waa bahalkan alwaaxa oo lagu jarjarto markaa hilibka jarinaysid bashasha aad jarinaysid bahalka la isticmaalo ayaa la dhahaa cutting board. Bowl waa baaquli. Peeler maxaa waaye baasha lagu fiiqo ama bahalka lagu fiiqa la dhahaa sida kaaroodka camal markaa fiiqanaysid baradhada ayaa la dhahaa peeler. Oven cooker maxaa waaye oven cooker ama oven le waa iska dhigi kartaa but oven cooker maxaa waaye bahalka lagu kariyo jikada adig electronic ayaa la oven kaligeedna waa foorno. Oven waa foornada wax lagu dubto burarka lagu dubto doorada adii waxyaabaha lagu dubto ayaa la dhahaa. Microwave maxaa waaye baasha cuntooyinka lagu kululeysto. Tan kalena waa oven tanna waa microwave. Tii horena waa oven cooker kaligiisa iska dhigi kartaa midaas kale oven cooker.
marka wixii af Soomaali ka maqan fadlan comment ku soo qor hadaa kasaysid. Meat tenderizer maxaa la dhahaa baasha hilibka lagu garaacayo mostly hilibka steak marka hagaajinaysid ama hilibkan busketi camal aad sameynaysid baasha lagu jilciyo ayaa la dhahaa meat tenderizer. Nutcracker waa qalab jikada loo isticmaalo oo lagu jabiyo loosaska. Loos adag ayaa jirta, looskan loos maskax meedhaan Soomaalida I don't know ayaa jirta bahalka lagu jabiyo ayaa la dhahaa nutcracker. Cracker maxaa waaye jabiye, nutna waa loos. So hadii la fasiraya ice cream scoop waa qaandada ice creamka lagu soo daro ayaa la dhahaa. Qaandada ice creamka lagu soo daro maxaa la dhahaa ice cream scoop. Tray waa tray af Soomaali kalena hadaa ku kasaysid fadlan hoos ku soo qor comments-ka maxaa ku soo qortaa camal word-ka ayaa soo qaadani. For example tray markay ahayd camal af Soomaali sidan ayaa lagu dhahaa ayaa leedahay. Blender waa mashiinta cabitaanada lagu shiito ayaa la dhahaa blender. Ayadana hadaa af Soomaali ku kasaysid hoos ku soo qor like maxaa dhihi blender af Soomaali sidan ayaa lagu dhahaa. Sidii fork camal hada fork waa fargeedo Soomaha comment-ka maxaa ku soo qori fork af Soomaali maxaa lagu dhahaa fargeedo sida dadka kale u bartaan aniga barto. Spatula maxaa waaye qaandada fidsan oo waxyaabaha lagu dibka looga markaa wax dubaysid camal lagu gadgadiyo ayaa la dhahaa spatula. Spoon waa godanta qaanda dhexdeeda ka godanta laakiin tan waa yara fidsan tahay. Refrigerator waa talaajad ama fridge waxa u kasaysidba refrigerator ayaa dhihi English ama fridge ba waa dhihi kartaa. Kettle jalmad. Mortar and pestle waa kal iyo mooy. Mortar and pestle kal iyo mooyo. Mortar and pestle waa kal iyo mooyo. Coffee maker waa bahalka jalmada qaxwada lagu hagaajiyo oo electronic ayaa la dhahaa coffee maker. Ayadana hadaa af Soomaali inta ku kasaysid u maleynaysid soo qor fikradaada waa muhiim ayay noo tahay nala wadaag. Coffee maker waa qaxwo hagaajiye camal ayaa laga wada direct hadaa u fasiro. Air fryer waa bahal lagu kariyo saliid la'aan wax ugu shiilani waa electronic ayadana air fryer ayaa la dhahaa. Air fryer saliid la'aan ayaa wax loogu shiila ayaan dhahay waana electronic waxaa rabtid sida foorna ahaan waaye laakiin somehow doo way ka yara duwan tahay. Hand mixer-dan maxay la mid tahay camal xurbinta hadeeti aan dhahay whisk iyo hand mixer waa isku mid laakiin tan waa electronic gacantaadana isticmaali. Hand mixer saas camal laga soo qaaday gacanta ayaa ku isticmaali camal wax iskugu xurbisid malaha. Soo cashirkeen halkaas ayuu inoogu egyahay. Sorry hadaan ku yar wareeriyay af Soomaaligeedu ku wareeriyay maalmahan waan yara mashquulay sidaas ayaan ugu maqnaay. Hadaad ku cusub tahay kanaalkan ku soo dhawow hadaa mar hore ku xirneedna mahadsanid. Fadlan hal shay ayaan ka codsanayaa adiga viewer-ga ama fiirsadaha hadaad xayeysiin aragtid fadlan ha ka boodin lacala hadaa kan ka soo boodo kuwa kale ha ka boodin insha Allah waa wada mahadsantiin. mid kale maxaan dhihi lahay hadaad fikrad qabtid camal hadaad ku xiran tahay TikTok-geyda hoos ayay ku qoran tahay Saciida Isaaq
TikTok hoos ayaa ku qoran tahay videoyaal ayaan soo dhigay aan dhihi jiray aan dhahay camal aan dadka igu xiran warsanayay videoyadan maa noogu bedelaa like maxaa waaye videoyaal oo diyaarsan aan fasirayo marka lacala hadaad fikradaas sidee u aragtaa hadaad u aragtid taas ayaa fiican si fiican ayaa wax ku barana ayadana waana la wadaagi kartaa. Assalaamu calaykum.